balse markan gobolka Gedo dadka ku dhaqan magaalada Garbaharey ee xarunta gobolka Gedo ayaa waayadan ku jiray baahiyo dhanka caafimaadka iyadoo oona ay duruufahaasi ku qasbayeen dadka qaarkood in ay caafimaadka u raadsadaan meelo ka fog sida caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho waxaa hadda lagu guuleystay in dib loo howlgeliyo isbitaalka degmadaasi iyadoo loo dhameystiray qaybo kamid ah agabka caafimaadka ugu muhiimsan shaqada warbixin arintan ku saabsan waxaa nooga soo diray wariyahayga Yaxya Cabdirasaaq Zoofe oo booqday halkaasi magaalada Garbaharey ee xarunta gobolkan Gedo in muddo ahba waxaa ka jiray baahiyo caafimaad iyadoo oo dadka ku dhaqan caasimadda gobolkana ay adeegyo caafimaad u raadsan jireen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyo dawladaha dariska sida Kenya iyo Itoobiya balse haatan waxaa shaqadiisa dib u bilaabay isbitaalka guud ee degmada Garbaharey ee xarunta gobolkan Gedo isbitaalka ayaa hadda qabanayo adeegyada kala duwan ee caafimaadka sida bukaan jiifka iyo bukaan socodka waxaana loo dhameystiray dhammaan qalabkii uu isbitaal ku shaqayn lahaa taasi oo bulshada Garbaharey ay si weyn u soo dhaweeyeen Dr. Aadan Cabdi Xaashi Goomey agaasimaha guud ee isbitaalka Garbaharey ayaa ka warbixiyay adeegyada caafimaad ee isbitaalka qabto iyo halka ay gaarsiisan yihiin adeega caafimaad oo ay bixiyaan isagoo dhanka kale sheegay in dad qaba COVID-19 laga helay magaalada Garbaharey wuxuuna intaasi ku daray in aysan haysan qaar ka mid ah qalabka lagu baaro COVID-19 oo markale dunida ku soo laba kacleeyay isbitaalku wuxuu ka kooban yahay ilaa dhowr qaybood oo sida caadiyanka isbitaalada ay ka kooban yihiin isbitaalku wuxuu ka kooban yahay qayb bukaan jiif isbitaalku wuxuu ka kooban yahay qayb bukaan socod isbitaalku wuxuu ka kooban yahay qayb dhalmo oo haweenka iyo waxaas ay ku dhalaan isbitaalku wuxuu ka kooban yahay qayb maxaan ku dhahay nafaqa darrada ilmaha la yiraahdo SC la yiraahdo lagula tacaalo isbitaalku wuxuu ka kooban yahay qayb MCH وهويدا وريدا أي حالة هذه وعسل ولا تعالوا سبتالك وحولي قيب outreach كتيم كشقي تولوينك هذا تكوس الدواوي تولوينك وحيالها أي حل ويانا سبتالك أنت بدنا كسحره تلال يداوين يطلبا كسب بحيو تولوينك سبتالكو وكوبي هاي أو كلا تقيب TB أيولي هاي أو جوني أو مكانة TB ده كقطان داوينتا TB ده isbitaalku sidoo kale wuxuu ka qaabiyo qayb shaybaar ah oo maxaan ku dhahay adeeg loo baahnaa ee shaybaar ilaa inta basic oo dhan qabata marka guud ahaan isbitaalku intaas uu ka kooban yahay xanuunka COVID-19 waa xanuun adduunka dhan gilgilay oo adduunyada dhan khalkhal geliyay oo waxyaalo fara badan oo adeeg ah oo loo baahnaa joojiyay annaga ka Soomaali ahaan wuxuu nagu yeeshay saameyn ka Garbaharey ahaan waxaan ka midnahay goobihii xanuunka markii la baaray laga helay muddo laga joogay 3 bilood ka hor dhowr qof oo laga qaaday baaritaano degmada Garbaharey waa laga helay markii laga helay ka dambe waa xanuunka saameyn buu ku yeeshay dadkii cabsi iyo argagax iyo maxaan ku dhahay waxyaalo fara badan oo adeegyo ah oo dadkii qabsan lahaayeen oo maalinle ah oo safarada iyo socodka iyo waxyaalo fara badan la xiriira isbitaal kale oo waxaan leenahay aan ugu talagalnay COVID-19 iyo team gooni ka shaqeeya isbitaalka dabaqa ee jaalisiyaad la yiraahdo isbitaalkaas aan ugu talagalnay COVID-19 waxaa jira team emergency oo loo qaatay oo shaqaale caafimaad iyo shaqaale nadaafad iyo shaqaale kale isugu jiraan ka shaqeeya halkaasina diyaar ugu yihiin waxaana diyaar u yihiin markasta oo ama laga shakiyo ama la kulmo kiiskaas in laga daaweyn karo saameynta ku yeeshay adduunka iyo mid ku yeeshay Soomaaliya iyo mid ku yeeshay gobolkaba annagana uu nagu yeeshay diyaar garow horta xanuunku waa xanuun dhib badan diyaar garowgiisana ilaa dawladaha adduunka ugu xoog badan ugu awood badan ayaa ka qaylinaya annagoo Soomaaliya ah oo tabartanada inta aragta leegtahay maxaan ku dhahay awoodana caafimaad meel baan ka afin karin waan u liidanaa gobol ahaan waa u sii liidanaa degmo ahaan Garbaharey ahaan waa ugu sii liidanaa xanuunku wuxuu u baahan yahay qalab laba qalab buu u baahan yahay qalab inta badan wuxuu u baahan yahay lagu baaro qalabkan gene expertiga ee dhaano lagu baara iyo qalab waxaa jira degdeg loo baaro rapid test la yiraahdo midka rapid testiga degdega lagu baari kara ayaa anagu haynaa laakiin midkan kale aad xanuunku u xaqiijiya ee gene expertiga la yiraahdo gobolka dhan balad xaabas ku yaala marka Garbaharey ahaan ma yaalo
guud ahaan degmooyinka gobolka inay haystaan ama guud ahaan degmooyinka kaleete ee Soomaaliya inay haystaan qalabka asaga aad iyo aad ugu fiican lahayd qodobkan kaleete ee lagula tacaalaa qofka markii uu naqaska aad ugu dhigo annaga waxaan haysanaa oxygen cylinder wax la yiraahdo waxyaalaha basic lagu xallin karo laakiin xaaladda markii adkaato balkan ventilator ka la yiraahdo magaalada Muqdisho gudaheedu ku adag yahay ku yar yahay guud ahaan gobolka Gedo ma yaalo marka qalabkaas ventilatorada la yiraahdo iyo qalabkaas baaritaanka ee jiil expertiga ka hadlayaba labadaba gobolka uu baahan yahay khaasatan degmada Galbaarey aad iyo aad bay ugu baahan tahay ilaahay nagu keen hadduu yimaado xanuunka asagana waa waxyaalo la tibi doono oo degdeg loogu baahan doono waa sax waaye 2018 wixii ka horeeyay waxaa jirtay xaalad badan oo hooyooyinka uurka leh ee u baahda in lagu caawiyo qalliin dhalmadooda lagu dhalin karo qalliinkan la yiraahdo CS-ka inaan istaalka lagu sameyn karin oo marka ayada uu ku sugnaan dhakhtar sameyn karo qalliinka asaga alxamdulillah tiyaatarna uu san dhisnay marka ayada ahayd 2019 bilowgeedii ayaa la dhisay tiyaatarka soo aragteen waxaana la keenay dhakhtar iyo qof suuxiye ah oo istaalka mar walba joogto ku ah 2018 dabayaaqadeedii ilaa iyo 2020 maanta dabayaaqadeeda aan sii maraynaba inta ayada ma jirin halkiis oo loo qaaday buulaxaawo istaalku wuxuu ku filan yahay dhammaan inuu xalliyo emergency-yada khaasatan hooyooyinka la xiriirta dhalmadooda iyo xaaladaha degdegga hooyada marka uurka la kusoo boodaba ayuu diyaar u yahay kiisas badan buu istaalku xalliyay 40 saacna diyaar yahay baa loogu jiraa uu xallin kara arrinta ayada والله isbitaalada marka laga hadlayo isbitaalada waxa la yiraahdaa waa isbitaal waa primary isbitaalna waa secondary isbitaalna waa tertiary bal isbitaalada waa kan koobaad kan labaad kan saddexaad ay isbitaaladu kala baxan isbitaalkan oo kale tad waa primary waa asaasi waxyaalaha inta badan asaasiga ee ummadda u baahan tahay ayuu isbitaalkan qabtaa isbitaalkan baaxad weyn buu u leeyahay guud ahaan gobolka iyo gobolada dariska laaba isbitaalkan sidii loo yahay degmada Ceelwaq oo ilaa 160 km noo jirta malahan isbitaal sidoo kale degmada Baardheer oo ilaa 120 km noo jirta ayana malahan isbitaal deegaano kale oo sida degmada Buurdhuuba iyo Ceel Cadde oo korto ay ka ruuxo deegaano waaweyn ah oo nagu dhow 40 km ilaa 50 km lixdan noo jira ayaan isbitaal lahayn iyo intaas kale oo tuulooyin waaweyn oo dib ka dhismatay ama dib ka weynaadaba iyo goboladan dariska nala ee Baay Boqol degmooyinkan Qasax Dheere iyo maxaan ku dhahay deegaanadan kale oo ku xeeran ee Buurdhuuba ka shaqeeya inta halkan isbitaal ah marka intaas oo dhan capacity intaas la eg ama area intaas la eg waxa bukaan oo ka yimaado intooda badan isbitaalkana ka fargareeya marka isbitaal guud ahaan gobolka iyo gobolada dariska la ah iyo degmada iyo area-daba aad iyo aad muhiim ugu yahay ummadda waxaan u dirayaa fariin guud oo ku saabsan maxaan ku dhahay waxaan la yiraahdo fayadhowrka ama caafimaadka bulshada waxa la yiraahdo ku saabsan fariintaas oo ah in xanuunkaas dhibaatada badan ee COVID-19 ka leeyahay ee waddankanaga lagu arkay haddana meel ka mid ah waddanka ka jira in laga taxadaro fariimaha bahda caafimaadka ay bixinayaan oo ama idaacadaha ay ka bixinayaan ama baabuurta mikrofoonada wata ay ku wareejinayaan magaalooyinka guriyada ama isbitaalada ay ka bixinayaan dadka shacabka inay dhib nuglaadaan waxyaalaha loo sheegay inay ka cararaan dhammaan fariimaha ku saabsan xanuunkaas iyo xanuunada kale ee asaga la midka ee si sahlan loo qaadi kara ee dadka bulshada dhibaateyn karaba dadku in u nuglaadaan fariimaha bahda caafimaadka ay bixinayaan ayna qaataan feejignaadaanna xanuunkana fariimahaas markay u nuglaadaan buu yaraan karaa lagana hortegi karaa la iska dhalaalin karaa marka dadku waxaan kula talinayaa inay u waantoobaan oo u dhaga jeclaadaan xanuunka asaga fariimaha ku saabsan dadka bahda caafimaadka ay bixinayaan si kastaba ha ahaatee magaalada Garbaharey ee xarunta gobolka Gedo ayaa waayadan dambe waxa ay xooga saartay sidii loo heli lahaa adeegyada bulshada ee lagama maarmaanka ah Yaxya Cabdirasaaq Soofe RTN magaalada Baardheer ee gobolka Gedo.